السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما وسلام يا أصحاب الجنة كي كحرن هذا دي عصبتهاي سودو سبسكرايب كيسر كمبريل كفرو سي أدو نقطة لجيستا أهوري لجيستا قصوين كيجا هذا هوري إلي شكتين واتكم حسن تهاي سيدو كلا كمبريل كفرو لايك تها إلي جيلاون إن أصحابتي ذا ما أنتوا حقين ولا قصو وحبدن أكفائدي دونتان قصدا أيا مقعد وحالة دها kalkaaliyihii dilaaga ahaa Soomaali ahaan anaga kalkaaliye yani waa kalkaaliye waa qofka la shaqeeya dhakhtarka soo maaha kalkaaliyihii dilaaga ahaa maanta waa qisadeena ay ku socotaa waxaa jira waxaa qisadan noo soo gudbiyay nin yani qaxooti ah oo wadankaas Jarmalka ku nool gobol يعني حيجا وقوية جرمالكا أولي يراهدو Oldenburg هذا خلط مقع أو جيبيو أصحاب ترى جرمال إيجو حرن جنال كيجا خاص إيجو سقراء مقالة ساعة مقع هذا خلطي Oldenburg أيها إيري هذا خلطي خاص إيجو سقر anyway نين كان قبل كاس أيو كنولا وحد عضي يعني أرين لياب له أيو أركي isbitaal weyn oo Jarmalka ku yaala oo gobolkaas hadda aan sheegayni ku yaala ayuu wuxuu arkay aad u qurux badan oo aad loo habeeyay oo qalabka yaala ma sha Allah uu yahay oo isbitaal yani isbitaalada ugu haysan yani wadanka uu ku jiro ayuu wuxuu arkay inay sabatagin dadka yani Jarmalka oo dhashay wadanka ma tagaan isbitaalkaas only dadka oo anagoo kalayo wadamada yani laajiinta la dhaho qaxootiga unbaa taga haddii ahaan lahayn carab haddii ahaan lahayn ajnabiga kale laakiin dadka wadanka u dhashay isbitaalkaas ma tagaan maxay tahay sababta isbitaalkaas sidaas dhan yani oo ah oo sidaas u weyn oo sidaas loo maalgeliyay inay tagi waayaan waxaa dhacday isbitaal wuxuu yiri ninka qisadan soo gudbinaya wuxuu yiri maadaama aan luqadda Jarmalka garanayay ayaa waxaan weydiiyay nimanka isbitaalka ninka ugu weynaa ayaa waxaan weydiiyay oo dhakhaatiirta ugu waaweyn kamid ah maxaa sababay in isbitaalka imaan waayaan ama caafimaad u soo dooran waayaan dadka Jarmalka ah wuxuu yiri waxaa dhacday hadda ka hor qisa dhacday darteed ayay arinta yani sababaysa maxay tahay waaya qisadu waxa weeye nin waxaa jiray ahaa yani kalkaaliye caafimaad oo isbitaalkan ka shaqeyn jiray oo la dhihi jiray magaciisa Nils Hogel ninkan wuxuu sameyn jiray inta badan yani wuxuu ahaa kalkaaliye yani xoogaa yani fashil la kulmay yani shaqadiisa ah ayuu ahaa oo dhowr jeer yani khaladaad sameeyay oo yani shaqadiisa yani fashil ku timid ayuu ahaa oo yani xoogaa yani waa dareemi kartaa oo qofku markuu yani qofka wax soo bartay caafimaad soo bartay oo markuu waxyaalo badan khaldo yani kalsooni dara imaanaysa fashil ba imaanaya ayuu ahaa dan waxaa dhacday in ninkan uu yani dhowr jeer la kulmay arrimahaas kalsooni dara ku dhacday isbitaalkan uu ka shaqeynayay marka si uu dadka u kasbado qalbigooda ayuu wuxuu sameeyay dadka ayuu wuxuu ku duri jiray cirbad yani sun ah uu hayo ayada dawadeeda markaasa waxaa la arkayaa qof xaalad khatar ah ku jiro isla markii asaga imaanaya waxbuu isku dardaraya qofkii horuu ka fiicnaanaya markaasa waxaa loo wuxuu helay yani sumcad iyo magac markii hore sumcadiisa magaciisa hoos ayay ahayd يعني فشل بدن أيو لكل مي أو يعني إنه أقونتي فيعنين يعني دتك بيشنت أو يعني إيمانية أو يعني حنوصن أيو مارتا دتك بوكانك أيو لورجر يعني فشل كل مي مركن كان طريقة سو أديك سدي سو نقضه نينك أو يعني إيشك إن نينك أو مارتا أقونت بدن أو سرية ماشى أيو سيدا سمي muddo markuu sidaas sameeyay dhowr jeer arintaas lagu arkay dhowr jeer dad yani iska xataa maarata yani meelaha yani ICU kale ku jira xaaladaha lagu arkay khatar ah soo sameeyay adigu naag wax u fiirsatay ayadana kalkaaliso kale ah ayaa wax u fiirsatay
dad iyadu ay ileen qof kasta meel buu ku qoran yahay, meel ay ku qorneed dhowr jeer ayaa waxay ku aragtay dad tu u galay cabaar kadib xaalad emergency loogu yeeray isla markii asaga tuu daaweyn siiyey uu yani arrintaas ku hagaagtay ayuu dhowr jeer arkay. aduu markaas waa 2002 arrintu markay arrimaha uu ninkan wax saas samaynayo waxaa dhacday in yani isbitaalka uu ninkii aan ka noqdo qolkaanu galayaa waxaa dhacaysa qof xaalad emergency khatar ah ku jirto markuu galayo lama oga yani waa loo yeerayaa daawo ku durayaa ilaa asaga marka hore cudurkii keenay yani sidaas buu ninkii qofkii ku fiicnaanaya. aduu wuxuu ninkii saas sameeyo maalinkii dambe waxaa badatay isbitaalka kusoo badatay dad badan oo waaweyn oo xaalado khatar ah galaya oo adugu dhimanaya dadba ku dhimanaya tuu ka gaari waayo inuu cirbada ku diro dadba si buu jirkooda qofba si buu jirkiisa reaction u bixinayaa adugu dad badanna waa dhinteen dad badanna ninkaas wuu badbaadiyey oo asagaa ilaa cudurkii ku duray asagaa dawadii siiyey. waxaa dhacday inay sameeyeen isbitaal weli ku yaala dhanka waqooyiga meeshaas yani isbitaalka kale u dhow ayay sameeyeen. isbitaalkaas maxaa la geeyey waxay ogaadeen dadka u badan ee dhinta ama dhibkoos ku yimaado inay 63 sano jir ilaa iyo 92 jir inuu yahayn. dadkaas ayaa isbitaalka loo sameeyey. ninkii isbitaalkii ayaa madax looga dhigay loogu wareejiyey adugu sidii ayuuna samayn jiray. dad badan ayaa dhintay oo cirbadii iyo wixii uu sameynayay darteed intuu subcada raadinayay darteed u dhintay. arrintu markay cabaar socotay maalinkii dambe oo dadkii iska dhimanayaan oo dadkii boqolaal ay marayaan ayuu wuxuu sameeyey adugu waxaa lagu qiyaasaya dadka uu ninkaas dilay 300 inay yihiin ayuu wuxuu sameeyey waa loo yeeray waxaa la yiri maya looma yeerin waa arrintan waa in la baaraa baa la yiri ninkan nis la leeyahay nis hogal muxuu markuu yimaado dadku u fiicnaadaan marka horena ayagoo fiican ee xaalad emergency ah oo galaan waa su'aal isweydiin mudan. adiga waxaa dhacday in ninkan uu kashifmi doona waxaa dhacday in maaragtaa arrintii la baaray si deeply loo baaray waxaa la soo ogaaday in ninkaas yani inta dhacdo oo dhacday malafyadii ayaa la soo saaray feelashii waxaa la soo ogaaday inta dhacdo inuu ninkaas sal ku lahaa yani waqtiyadii iyo awqaadkii iyo timekii iyo wixii iyo daawooyinkuu siiyey wixii baa la isku ogaaday adugu waxaa la soo ogaaday inay islahaayeen hadduu 300 dilay 300 oo kalena way nool yihiinoo tuu cirbad ku duru badbaadiyey علشان saas waaye. aduu waxaa dhacday isla markii ninkan waa la ogaaday haddii la ogaaday waa la xiray dacwad ayaa lagu furay adugu ninkii waxaa kusoo baxday in yani 2008kii ayaa ninkan maxkamadda la saaray waxaa kusoo baxay inuu dilay 300 oo qof ayuu dilay. haddii la weydiiyeyna wuxuu yiri ani yani dad badan oo beeshin ah ayaa niyad jabiyey marka halkaas haddaan aniga tacliiq yar ku darsado haddii weliga iyo allaha iska ilaali inaa dhakhtarka ama yani kalkaaliyaha aad wax si xun ula hadasho wax kasta ka suurtooba yani ma jecla in la dhaho yani shaqadiina fashil waaye marka weliga isku badnow marnaba yani hasku dayin inaa maaragtaa aad kalkaaliyaha iyo dhakhtarka iyo lama maago waxba laguma darsado laskuma walawaala xataa because waxay rabaan ayay kugu samayn karaan sax. marka ninkan waxa cadownimada intaa la egeliyey waa yani ii sheeg beeshinkiis dadkii yani bukaanka ahaa oo u yimaaday dhib uu kala kulmay ma fahanteen. marka weligaa adiga yani ka digtoonow inaad qof maaragta kalkaaliye ah iyo qof maaragta dhakhtar iyo lama galaan ku iri waa loo qoslaa adoo dantaada hoos ka wata horaa looga socdaa. anyway aan kusoo noqono mawduuceeni ninkii waa maxkamad ayaa la saaray
arrintii adugu wuu qirtay. hadduu qirtay muxuu qiray 200 qof buu qirtay. boqolka kale wuxuu u inkiray yani sideedaba dadkan markii dadkooda baktiyaan ama hadday muslim yihiin hadday gaal yihiin hadday muslim yihiin ay dhintaan ama hadday dadku kale diini ahaan muslimku ma qabo in qofka la gubo. laakiin dadkan gaalada inta badan dadkooda qayb waxaa jira ama dhaqan ahaan guba. dadkii hadday qayb aduu 100 wuxuu u tuuray in qayb yani la gubo qayb aduu saas u tuuray wuxuu isiiro haddii hadda dadkii dhintay lasoo saaro qabriyada laga soo saaro oo yani la baaro waxaa la ogaanayaa 200 waa la heli karaa because dad dhow bay ahaayeen. laakiin dadka kale waa dad fog oo qaybtooda haddii la rabo waa la gubay. aduu 200 qof ayuu qirtay. hadduu 200 qof qirtay sababta yani ninkan horta saasaa loo xukmay. sababtu ninkan arrinta u sameeyeyna waaba idin sheego waa xaasidnimo gashay iyo fashil uu kala kulmay yani guuldaro uu kala kulmay dadkii yani aqoontiisii iyo shaqadiisii oo xoogaa yani lama yani wax laga sheego la yiri aqoontaadu ma dhamaystirna ama dadkii uu u shaqeynayay bukaanka ahaa oo wax ka sheegay ayuu sida u sameeyay. waxaa dhacday ninkan markii la baaray taariikhdiisa inuu magac xataa ula baxay oo magac kale lahaan jiray. waxaa dhacday hadda ka hor 5 sano ka hor saasoo kale naag kalkaalis aragtay isagoo qof wax ku sameynaya tuu la kulmay yani arrimahaas waa markii kow arrinta uu kusoo bilaabatay ninkan tuu la kulmay arrimahaas in yani la arkay kadibna la dacweeyey kadibna 5 sano oo xabsi soo laqay kadibna uu magaca bedeshay. markaan uu sidaas isbitaalkan ku yimid oo intaasoo dambi oo kalena uu sii galay. saas ahayd ninkan qisadiisa. adugu sidii ayaa ninkii loo xukumay. sidii ayaana waxaa lagu xukumay xabsi daa'im. laguma xukumin toogasho, xabsi daa'im ayaa lagu xukumay. waxaa dhacday arrinta qisadan yani qisooyinkii ugu caansanaa ee aan maqashay maxay ahaayeen. qisadii ugu carabaha aan ka maqlay ugu caansanayd ee kalkaalisadii dilaaga ahayd maqan inaad la socotiin cayda ayaa la dhihi jiray. cayda waxaa lagu soo eedeeyay inay dishay yani 29 qof oo inay dishay oo sidaasoo kale cirbad saasoo kale ugu dhufatay daawo u siisay ayaa la sheegay. qoftaas maxkamado badan ayaa la saaray. aduu markii hore waxaa lagu xukumay dil toogasho ah. icdaam ayaa lagu xukumay toogasho kadibna waa laga daayay 10 sano xariga lagu xukumay. dad badan u dooday ayaduna hal mar xataa ma qaran. markasta waxay dhahaysay aniga beri ayaan ahay. dad baan u dooday adugu 10 sano xariga ayaa lagu xukumay. waxay soo qaadatay 7 sano 3 sanana waa laga cafiyey. qof intaasoo dhan dilay inay cafiyaan ama xabsi kasoo saaran kolley I don't know ma garanayo sababta. cayda qisadeeda waxaa laga sameeyey yani filim musalsal ah oo opera cayda miyaa la dhahaa ama magac saasoo kale ayuu lahaa oo uu matalayay Yaxya Fakhraani iyo Xanaan Turki. xanaan turki waliba si u matalaysay yani si cajiib ayay ahayd. xijaabka si u qabtay ayada u qaab ekayd. alxaasil qisadaas yani hadda kumaana jirin. yani qisooyinka ugu caansan oo yani kalkaalisadii dilaaga ahayd oo carabaha ka dhacda cayda ayay ahayd. alxaasil qisada ninkaas sidaas ayay ku dhamaatay. dardaarankeennuna maxaa weeye qofka dhakhtarka ah iyo qofka kalkaalisada ahba yani weligaa ha isku dayin inaad isku taagtid ama aad hadal qaldan tiraahdid ama intaad maaragtaa la saayiri kartid waa lala saayira adoo u baqaya naftaada because dhacdooyin badan ayaa adduunka ka dhaca. maxaa weeye sababta aan usoo qaadanayna qisooyinka ama dhacdooyinka waa in cibro laga qaato. waa inaa wax un kala dhex baxdaa waa inaa wax un kala dhex baxdaa. waxaan waa wax dhici kara wax adig kugu dhici kara wax aniga ugu dhici kara. marka markasta waxaa loo baahan yahay taxadir gooni ah iyo digtoonaan gooni ah. asxaabta aan jeclahay oo maasha allah channelkayga ku xiran qisooyinkayga ku xiran waxaa idin leeyahay intaan qisadan qisa lamida ku kulmi doono isma dhaafno.
في أمان الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.